masalada ninku markii uu reer guursanayo wax guud oo qofka nin walboo reer yeelanaya laga doonayana waa jiraan. wax si gaara looga doonayo qofka hal xaas ka badan yeelanayana waa jiraan. si guud waxaa looga baahan yahay dee waa mas-uuliyad qofku wuxuu qaadayo. qofkan dumarkee ninka uu guursanayana wuxuu qaadayaa mas-uuliyaddeedii adduun iyo aakhira labadaba. adduunkana nolosha deegaankeedii, nolosheedii iyo biilkeedii, caafimaadkeedii intaba wuu qaadayaa. aakhirana diinteedii, alla kacabsigeedii, hadday barasho tahay, hadday ku dhaqan tahay, mas-uuliyad baa ka saaran. oo ilahi wuxuu yihi quu anfusakum wa ahliikum naaran. nabiguna wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati. qofka dhammaantiin xil baa idin saaran. qof walbana xilkii saaran buu mas-uul ka yahay. ninka waxaa la yidhaha wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa. gurigiisa reerkii baa jooga, ilmihii baa jooga, xaasas badan baa joogi kara, xaas keliyaa joogi kara. taasi waa si guudoo looga baahan yahay inuu qof ku talagalay yahay mas-uuliyadda qofkan ilaalintiisa iyo xuquuqdiisa adduun iyo aakhiraba. ta waa si guud baa looga baahan yahay. midda labaada looga baahan yahay markay laba xaas timaado iyo wixii ka badan waxaa ku soo kordhaya cadaalad xuquuqeed baa ku soo kordhaysa. xuquuqda cadaaladdeedu ama ha noqoto cawabariga, ama ha noqoto nafaqada iyo biilka xadda baahidooda ah, ama ha noqoto dhaqaalaynta iyo waxtarka. macnaha wax kastoo cadaalad ah looga baahan yahay oo isaga awooddiisa iyo karaankiisa ah. mid isaga mas-uuliyaddeedu haddaynan saamayn dhaqankiisa ku yeelanin mas-uuliyaddeeda isaga ma gasho, oo ah qalbigiisu dhankee u yar badan yahay. waata ilaahay ku magaco tilmaamaya qur-aanka walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaa'i walow xarastum falaa tamiluu kula اlmayl. aayaddu waxay ka hadlaysaa cadaaladda laga hadlaya waa qalbigiina inay u sinaadaan, laakiin dhaqankiina waa inay u sinaadaan. sida carruurtaad dhashayba mid waa ka jeclaan kartaa, laakiin xuquuqdooda cadaaladda inaad ilasaa lagaa doonaya. taasi waa mas-uuliyadda guud ee saaran nin kasta oo hal xaas ka badan yeelanaya inuu cadaalad u sameeyo. hadduu sameeyana dee nabig wuxuu sheegay sal aakhire inuu iman doono isagoo labada dhinac dhan u janjeeroo qalloocsan baa aakhare buu iman doonaayo astaanu ah inuusan cadaalad toosan ahayne uu dhan u janjeeray. dabcan dumarka oo guursanaya ilaahay ka baqayana waxaa laga rabaa inay garab ugu noqdaan in uu cadaaladda ilaaliyo, iyaguna ayna ku riixin inuu qaarkood u xagliyo. hadduu isagii dembaaboo dariiqa ka leexdana aakhirka dembiga cuquubadiisa adduunka isaga iyaga way ku soo laabanaysa. alxamdulillah, masalada masayrku ama qiiradu waa masalo fitri oo abuuro ilaahay dadka ku abuuray. way u kala badan tahay say dabeecadahooda u kala duwan yihiin. qaar baa waxaa ku jiraya qabow yahay, qaar buu kulul yahay, way kala masayr kulul yihiin. nabiga alayh sala salaam markii umu salama uu guursanayay ee guurka uu bandhigay way ka cudur daaratay. laba sababood bay sheegatay. waxay tii horta carruur baan leeyahayoo dee carruurtaydu inay ku dhibaan haddu ad dhibsata ma doonayo. laba qof masayr kulul baan ahay bay tiri. wuxuu hi carruurtuna waa carruurtaydii, masayrkan ilaahay baan baryayaa inuu kaa qaado. fal ahaan wuu u dhici karaa, dadka qofka ugu khayr badan ee ugu wanaagsan buu ka dhici karaa. nabig alay slam maalin isagoo guriga caaisho jooga baa martiya dad baa u joogay. xaasaskii kaleo deris ahaayeen mid kamida baa weel timir ku jirtay soo dirtay tiri bal martidaa ha loo geeyo. caaisho in xaafadii kale raashin laga soo wareejiyey ka xanaaqday, ba hal dharbaaxay ku dhufatay xeeradii lagu waday, way dhacdo way kala jabtay. de timirtu waa boorkaa laga jaftay oo waa la ururiyey. nabigu ma xanaaqin, martidii baad igu sharaf tirtay ma dhihine wuxuu yihi kaarat ummukum, hooyadiin waxoogay waya masayrtay. markii subaxii la gaaray ee weelkii la celin lahaa dexeeray iyadu lahayd buu diray oo wuxuu yihi inaaun biinaa'in wa طacaamun biطacaamin. cunno haddii qofku waxaad gudbana cunna lagu gudaa, weelna mid baad jebisay ee kaagun baa la qaadani. talateeda waa cadaaladii oo qofkii weelkiisa haddaad jebisa kaaga inuu qaato. laakiin nabigu reactionkiisii ama falcelintiisii
maaha inuu xanaaqay oo qayliyey oo laakiin raggii buu cudur daartay wuxuu yidhi dagaarat umukum hooyadiin waxoogay masayr baa qabta way ka hinaastay marka hinaasho wax fitri oo jira weeye qofka hinaasaysana waxaa la rabaa in hinaasuhu waa nooc cadhada ka mida waa nooc ka mida qofku wuxuu uu tirsaday oo ka xumaaday haddaad carooto ama wax ka xumaato inuu xuduudda sharciga iyo xalaasha ku dhaafiya maaha iyadana xuduudda sharciga iyo xuquuqday leedahay inuusan gudbin baa laga doonaya inay ku dadaasho ninkana waxaa laga doonayaa waxaan waa wax dabiici oo fitriya inuu dulqaadkeeda yeesho weliba marka hore iyo mararka dambe uu kala dhib bataa wax walbana xanuunku markuu horeeya kugu cusub yahay saad kuu dhibiyo markaad la barato inaad la noolaato suu noqdo waa kala laba muddo waxaa looga baahan yahay inuu ninku u dhimriyo inuu u dulqaato hadallo badan ficillo badan waxyaabo badan inuu tixgelin yeesho waxani waa fitri oo waa abuur dabeecadda dadkuna waa kala duwantah warar kale masayr kulu yahaye inuu u dulqaato dumarka cusubna waxaa laga doonayaa qofkaa marxalada kacdoonka iyo dulqaadashada ay ku jirtaay inay raalli ka noqdaan oy ka cafiyaan ninka waxay raalligelin ama mararka qaarkood sadburin loogu sameeyo soomaalida masayrtirka ay tiraadoo kaleeto ama wakhtiyo dheeraada inuu la joogo ay noqoto oo kaleeto iyadoo berri waa ku iman kartaa hadday booskaad joogtana waa jeclaan lahayde iyadoo waajib loogu lahayn laakiin wanaagga reeraha dhisnaanshahooda inay kaga qayb qaadato waxyaabo badan oo dabacsanaan iyo fasax badan inay muujisaan laga doonayo bilahi tawfiiq